dhalinyaro si koox-kooxa u abaabulan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay falal amniga carqaladeynaya ka wada degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenley kuwaas oo ay qaatiyaan ka istaageen dadweynaha ku nool halkaasi. Haddaba taliska qaybta galbeed ee booliiska gobolka Banaadir oo ku howlanaa isna maalmahan soo afjaridda dhalinyaradaasi iyo sidoo kale burcad mararka qaar dhac geysta ayaa xalay howlgallo ka sameeyay xaafadaha kala duwan ee labadaasi degmo. howlgalkan oo ahaa mid ay ciidamadu ku beegsanayeen guryaha si haddii hub waxyaabaha maanka dooriye iyo ashyaa kale looga helo dadweynaha loogu soo bandhiga ayaa waxaa hogaaminaya taliye ku-xigeenka qaybta galbeed ee booliiska gobolka Banaadir Gaashaanle Bashiir Cabdi Siyaad Durqan waxaana wehelinaya taliyaha saldhigga Wadajir Dhame Xasan Cali Xasan Baari iyo maamulka degmada Wadajir. lagu baaxsanayo burcada iyo wax walba oo bulshada dhibaato marka lagu soo dhawaaday si wanaagsan maamulka degmada uu gudoomiyuhu horkalayo xigeenadiisa waaxaha dhammaan xigeenka saldhigga dhammaan loo markaa qaybta galbeed degmooyinka hoosmaada maamulka iyo amniga intaba ee iskaashanaya habeen walba degmo ay ka howlgalaan cid kasta ay amniga lid ku ah hadday tahay ka ganacsiga muqaadaraadka hadday tahay nabadiidka hadday tahay cid kasta oo amniga lid ku ah in loo hortago guryaha la baaro. Gudoomiyaha degmada Wadajir Bashiir Maxamed Cali ayaa sheegay in dhalinyaradan iskooxaysanaya iyo cid kasta oo ammaanka wax u dhimaysa tallaabo laga qaadayo iyadoo maamulka degmada uu arintaas ku garab siinayo hay'adaha ku shaqada leh ammaanka. waxaan howlgal ka sameynay degmada Wadajir waxay la qeybaha kala duwan howlgalkaas ujeedkiisu ahay inaan dhammaan guri u baarno maaragtay guryaha ku yaala degmada Wadajir annagoo maaragtay ka baarayna wax waliba ammaanka lid ku ah haddii ay aalahayd maaragtay waxyaabaha ammaanka dowladda daroogada maalmahan aad ka tarbartay dhalinyarada u isticmaasha haddii ay aalahayd nabadiidka haddii ay aalahayd wax waliba ammaanka lid ku ah annagoo taas ka duuleena waxaan sameynaynaa waxaan caawa bilownay howlgal aan ku baxsanayno dhammaan waxyaabahaas ammaanka lidku ku ah. iyadoo uu howlgalku socdo ayaa ciidamadu waxay heleen xog ku saabsanayd in gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay uu yaalo degmada Daynile oo ka tirsan qaybta galbeed ee gobolka Banaadir. baaritaanka oo sii cuslaaday ayaa waxaa markan ku soo biiray booliiska gaarka ah ee RRT iyo sidoo kale kuwa miina baarista MBB inkastoo ay xogtii qaraxa ee la helay ay noqotay mid aan waxba ka jirin. Maxamed Soofeysna warbaahinta qaranka Muqdisho.